السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكو سلام يا جامع عبد الله يا جعل أفريقيا تمنك بقول القرآن الكريم كان كل سلام يا سلام عليكم دكتور. وفي عنا وضيع على السعيدة هذه بان نقول لنا ونكسرنا مشان دقوق بان تشوفنا أستراليا. waxaan dareemayaa waxyaalo badan oo magarata isbedela oo fiicnaana inay jidho. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa mataqaanaa inay noqoto midii dadkoo dhanba uu ku liibaanayo dadku uu ku biskoonayey baan ilaahay ka baryayaa. iyo tan kasarka iyo tan mataqaanaa himmada iyo tiyan mataqaanaa maasha allah waa wax aan la koobi karin weeye oo aad iyo aad iyo aad ummaddu ay ugu farxayso, adiguna aad ku helaysid magalaaf dembi dhaaf iyo makfire iyo waxa weeye maasha allah. qofkii aad hadda daaweysaayo ilaahay daawada adiga hadda kuu soo saaro haddeed waxa weeye waa inuu abaalgud bixiyaa, abaalgud inuu bixiyo weeye magaratay keliyaha waxa weeye waa 50,000 something like that magaratay oo qof lagaaga saaray haddiiba iyagoo gurigiisii joogaba daawadan ilaahay uu ku guuleeyo maasha allah tabaaraka allahu tacaala. markay ugu yar tahay waa in xisaab dhamal ah ma afgaratay oo ay gabdho ku jiraan lagu siiyo weeye magaratay. marka aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol magaratay akhbaarta ka soo hadlaysa oo ma afgaratay daawooyinkii mataqaanaa ay qaateen warbixintooda ku soo bixinaya oo le mataqaanaa kii hadda ku caafimaaday oo daawadii ku caafimaadayna inuu sheegaa oo u sheegaa mataqaanaa dhakhtarkiisii iyo ummadda waa wax aad iyo aad u wanaagsan. ma afgaratay kii oo ku xanuunsadaa inuu dhakhtarkii dib ugu noqdo yidhaahdo mataqaanaa waxbaa si iga noqday oo saasna waa wax mataqaanaa meesha ku jira wey. marka dee waxaan leeyahay mataqaan dhakhtar waa aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol ma garatay. haddeed ilaahay maaragtay ha kula jiro, ilaahay ha kula jiro, rabbigay ha kula jiro ma afgaratay. daawadana ilaahay malab ha ooga dhiga dadka ma garatay, ma afgaratay oo midii lagu wada caafimaada allah ka dhigo ma garatay. waan ku salaamayaa jaamac ilaala jecel. asalaamu calaykum may dhakhtar. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. waan ku salaamayaa doctor jaamac 14 iyo boqolka qur-aanka kariimkaan kugu salaamayaa. asalaamu calaykum. waa odagii cali siciid ahaa. alxamdulilah waan fiicannahay annaga alxamdulilaah. daawadii aad noo soo dirtay horta annagu intayadii qaadatay hal nin baa nagu jiray oo xaas u joogo. ninkiina maasha allah wuxuu soo sheegtay mahadnaq weyn oo ah waxaan ahaa buu yidhi nin baktiyey xagga himmada oo maanta waxaan wadi la'ahay baabuurkii baan wadi la'ahay oo mar walba yacni waxaan jeclaysanayaa inaan xaajiyaddii la joogo haddii kale dee anigiibaaba ma garatay warbixin aanu ku diirsanno boqolkiiba boqol buu noo sheegay. maasha allah anigu markaan iska warramo dawo u tahay xanuunka la yidhaahdo borosed oo qanjirada gala. waxay u tahay dawo dhiiggay fiiltaraaraysaa sida asbiriinkii oo kale dhiigga mataqaanaa bay fiiltaraaraysaa oo waxa weeye qofkii lagu ama barari jireen ama mataqaanaa ilaahay hadduu kuu roon yahay mataqaanaa cuncunka lahaa waxaas oo dhan waa guureen waa tageen. waxay kaloo oo dawo u tahay mataqaanaa dawadan oo cabitaanka anigu waxaan umaleeya midda cabitaanka inay tahay midda mataqaanaa oo dhinaca fiiltaraaraynta dhiigga inay dawadaa tahay baan u malaynayaa. midda kale oo hoos laga qaadanaya waxaan u malaynayaa middan baawarka iyo alaabtan ma garatay keenaysa inay tahay baan rajaynayaa. waxa weeye qofka masquusha markuu aadayo ay kaadidiisu tix tahay oo kaadidiisu ay mataqaanaa ay sidii looga rabay aynan u baxayn baashaa markuu qaato kaadidiisu waa shawwac waay. waxaad dareemaysaa inay arrintaasu ay dhinaca ka soo jeedo brosetka
ma afgaratay waa sida aniga maskixiyan aan ma garatay u maleeyay weeye because waxa weeye kaadidan awooddeeda waxaa dhimay waa xanuun infection oo ku jira prostatka maasha allah howlaha kaleeta kama warrami karo deed anigu duulkii lama joogo laakiin warbixintii ninkiina siiyana saasuuna yidhi saasaan u sheegayaa axbaabta iyo jamaacada waa salaamayaa doctor jaamac wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat oo dhan fara badanna waa loo baahan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu